السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسن خير تقييمها يقايا له مير كستا joogtaan si kastana dhageysanaysan kusoo dhawaada maanta wararkaynihana waxaa kamid ah Oromo oo soo qaaday dagaal labaad ku soo qaaday Soomaalida degneed Ethiopia kuwaas oo ay sidoo marka hore rabeen inay ku barakacsadaan mise dhul ay kaga xoogaan inkastoo ay u suurtagali waysay ayaa hadda mar labaad soo qaadeen kuwaas soo qaan Soomaali badan ay u joodeen laakiin sidii marka ay dagaal badan oo Soomaalida ay iskala hortageen mise liyo booliiskii mise dowlad deegaankii meeshii ay degnaayeen iyo ciidamadii oo in badan ba meesha lagu aruurinayay ayaa ka hortageen kuwaas oo dhimasho badan iyo waliba burbur badan u geysteen haddana mid carabi mid fariida ka dhigeen dagaalkan oo mar labaad dhacay marka horena aan ogeyn inay usbuuc ka hor ay ahayd meesha ay dagaal ku soo qaadeen waliba ay ka soo bilaabeen Oromada dhexdeeda Soomaalida degneed inay marka hore ku soo bilaabeen jabhadahan oo marka ayada meesha Oromada ka soo barakaciyeen Soomaalida ku sugnayd meeshooda iyo degaankooda Soomaalida iska degneed inkastoo ay Soomaalida saan ognahay dad reer guuriyaan mise xoolo dhaqato iska yihiin oo mar meel iskaga guuraan ayaa meesha ka soo rideen mise ay ka soo marka hore ka soo kiciyeen kuwaas oo uga daba imaadeen haddana markii meeshii ay dhulkooda ka soo kiciyeen haddana inay dhulka Soomaalida ay lahayd ay ugu daraan marka ayada ay meeshii ka xoogaan ay rabeen laakiin nasiib wanaag dawladii iyo ciidanka liyo police oo marka ayada ka hortageen dagaal badan dhex maray meeshii oo lagu xasuuqay jabhadihii marka ayada Oromada ahayd oo lagu laayay ayada gadaal u carareen wixii marka ayada noolaayeen ayaa iska baxsadeen mar labaad ay haddana dagaal soo qaadeen dagaalkaas oo haddana ay rabeen inay ku aarsadaan dadkii meesha tagnaan dhulka Soomaalida ay u soo dhigteen inay ka kacsadaan ay rabeen ay u suurtagali waasay ciidankii Soomaalida iyo liyo booliiskii oo meesha ayada ku sugnaa kuna war ogaayeen marka hore inay dagaalka mar labaad soo qaadi doonaan ayaa meeshii madaxa iska shadeen dagaal dheer iyo muddo badan oo ay meeshii haddana madaxa iskula jireen mar labaad haddana ayaa laga guuleystay oo haddana meeshii haddana ayaga lagu laayay oo haddana lagu xasuuqay kadibna hadii kulay wixii ay haysteen hubkii iyo dagaalkii meeshii kula soo qaadeen liyo booliiskii oo gacanta kaga dhigeen kuwa badan gacanta looga dhigay dagaalkan oo la soconay dad Soomaali oo marka meeshii degnaayeen inay waliba kamid ahaayeen kuwa qaarkoodna gacan lagu soo dhigay oo hadda dawladda gacanteeda ku jiraan oo u warbixinayeen xaaladaha Soomaalida iyo ciidankii iyo waqtiga meel kasta ay ku wajaheen meel kasta ay joogaan ay ka warbixinayeen oo Oromadaas ay u bixinayeen waxay ka faa'iidayeen kulay ma sheegi karno waan iska Soomaali oo kulay ka soo horjoodaan dhulkooda ay ka degnaa in laga kiciyo nin rabo buuska aha nasiib wanaag dawladda iyo ciidankii looma taageeri karo dad meeshooda dhulkooda ilaashanayeen ahaayeen wayna ka xasuuqeen jabhadihii marka ayada meesha ku soo duulay Oromadan oo wali hadii ay ka laftooda ciidankii iyo dhibkii dadka u geysanayaan ka xun oo hadii lama socdaan dadkan waa dad jabhado iska haysteen oo duurgal iska oo damceen inay marka ayada dhulka ka kacsadaan oo Soomaalida inay burburiyaan oo dhulkii Soomaaliyeed bay u soo qanshaysteen inay kacsadaan mise dhulkii Soomaaliyeed inay ka kiciyaan u rabeen inkastoo ay u suurtagelin oo ilaa hadda dagaalka labaad ay ku soo qaadaan degaankii Soomaalida yaa looga guuleystay laguna laayay ayakii inkastoo dhinaca liyo booliiska ay laftooda dhaawacyo badan iyo waxyaalo ay soo gaareen laakiin inta ugu badan ayakii baa la laayay oo meeshii gacanta hadda maanta qaarkood lagu hayaa qaarkoodna marka ay wixii yar ay soo harana way iska carareen dagaalkan oo marba ka sii dambeysay oo sii xumaanayo oo aan ognahay ogaadeenaya dagaal badan baa ka dhacay waqtiyaal badan baa la isku dagaalay waqtiyaal badan oo beelo badan oo meesha degaan hadda Amxaaradii iyo Oromadan iyo Soomaalida meesha degnaan in badan dhulka waa la isku dagaalaa oo xasuuq badan iyo dil badan uu ka dhaxeeya laakiin kuwan oo damceen dhulkii Soomaalida ee lahayd ay ka laftooda isku dagaalayeen waan ognahay beesha maraxani beesha ogaadeen inay isku haysteen dhul waxay isku haysteen waan ogeyn oo Amxaaradii ay ka laftooda meeshii way ku haminayeen inay Soomaalida dhacaan marka Soomaalida meel kasta ay ku dhaxdooda is dagaalayaan oo ay ka laftooda isku dhex jiraan oo ay iska soo horjoodaan oo labada isla dhasheen bay iska hormaadsayin haddana la soo duulay oo dhulkiiba ay ka isku yareysinayeen mise ilaahayeen oo nagu yiriyahay oo ay ka inay isku dagaalaan bay taagnaayeen oo la isku laanahay ilaa hadda ee damceen haddana inay ku soo duulaan ay kan ay wax ka sii raasanayaan marka waa arrin marka ayada la yaab leh waayo dad idil oo meel isku imaaday oo meeshii deganaa dhulkii ka uu intaas oo qarni degnaayeen inkastoo hadii ogaadeenayaba ay ahayd in gaar iskaga istaagto dawlad gaar ay ahayd laga rabay laakiin maamul xumi iyo siyaasad xumi unba ka meesha geysay oo marka ayada Ethiopia hoos geysay in badanna way dagaaleen way damceen inay ka go'aan laakiin way u suurtagali waasay inkastoo ilaa hadda waqtigan laga daalin oo dagaalkii iyo marka ayada siyaasadeed iyo si kasto ay noqoto inkastoo dagaalkii bariyahan dambe uu qori u dhaafay waxyaalaha noocaas qori lagu dhameyn karin oo meelo kale iyo siyaasad kale iyo hadii xafiisyo badan ba loo dhaxmarayo oo ilaa hadda lagu guda jiro in laga soo shido oo marka ayada ogaadeenaya gaar loo istaajisto oo marka ayada ay dagaalkooda ay si u wataan ay rabaan in ay ka laftooda meesha ka dhacaan oo dhulka ogaadeenaya iyo dhulka Soomaaliyeed ee meesha ka degnaayeen ee damcaan inay marka ay dagaalaan kuwaas oo lagu soo warinayo masna wararka lagu soo gaaraan ay tahay Oromada inay u soo jihisteen
dhulalkii marka ay xuduudidka ay la lahaayeen dhinaca Kenya iyo dhinacan oo waliba Soomaaliya ah inay marka ay u soo jeesteen inay xoogaan dhulkooda ay kalaftooda ay dagaal u dagaalamaan oo meeshii ay dagaalaan laakiin meeshii ay soo qaadeen dagaalada kasta ay soo qaadaan kii labaad oo hadda ay ku guul dareysanayaan mar labaadna lagu xasuuqay ayaa nagu soo gaarayaan kaasoo hadda guul daro weyn ay ka soo gaartay markii labaad meeshii ay u kala carareen kolay wixii dambeeyay aan ka warsugi doono